السلام عليكم داوديال ميلبو aad naga daawanaysaan qodobada qaranjoog wararkan waxa ugu waaweyn dawladda Soomaaliya iyo midowga Yurub oo munaasabad uu koobjoog ka ahaa wasaar ku xigeenka Soomaaliya oo muqdisho lagu qabtay waxaana maanta si wada jir ah u socdeen heshiiska maalgelinta mashruucan dib u dhiska wadooyinka gobolada dalka oo midowga Yurub ku bixinayso lacag gaarayso 4.2 milyan euro hadda siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya iskuma dhuldoosh walaalahan xagee garuun ku dhuftaan xagee wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo ka hadlay magaalada Baadheer ayaa sheegay in siyaasadda dawladda Soomaaliya ay tahay in ay Kenya uga jawaabaan aamusnaan mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay shir maalmahan ugu dambeeyay la hadalhayo oo madaxda maamul goboleedyada ugu soconayay dalka Kenya balse la sheegay inuu ku fashilmeen iyo qodobada caalamka Sacuudiga oo u jahaysatay Israa'iil kadib markii ay ku fashilmeen Mareykanka qodobadaasi qodobo kale ay ku daawan doontaan wararkeena qaranjoog news umuraha Soomaaliya iyo caalamka ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan markale kulanti wacan daawadayaal meelbo aad naga daawanaysaan fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena qaranjoog news subscribe gabalkana furo si uu ku soo gaaro warkii u dambeeyay umuraha Soomaaliya iyo caalamka mahadsan dawladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa munaasabad uu goobjoog ka ahaa wasaar ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed ayaa maanta si wada jir ah u saxiixdeen heshiiskaasi maalgelinta mashruucaasi dib u dhiska wadooyinkaasi gobolada dalka oo midowga Yurub lacag gaaraysa ku bixinaysa 2.4 milyan euro wasiirka qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha Ambassador Jamal Maxamed Xasan ayaa safiirka midowga Yurub Soomaaliya Mr Nicholas Barlang Martinez ayaa heshiiskaasi si wada jir ah u saxiixay mashruucan dib u dhiska wadooyinkaasi gobolada Soomaaliya ayaa qayb ka qaadanaysa u qaadista awoodaha hay'adaha dhismaha wadooyinka heer federaal iyo heer dawlad goboleedyo mashruucan ayaa dib u dhis lagu sameeyaa looguna taactirayaa 350 kilomitir kana mid ah wadooyinkaasi isku xira dalka iyo dabcan wadamada deriska ah oo noqonayo laba guul oo la gaaray ma ahan oo kaliya inuu badbaadinayo nafta dadka isticmaalo sidoo kale waxay saameyn wanaagsan ku yeelanaysaa kobaca dhaqaalaha oo dalka maadaama ay wadooyinkaasi fududeynayaan isku xirka ganacsiga gudaha iyo wadamada deriska la ah sida Ethiopia iyo Kenya oo qayb ka qaadanayo shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed oo shaqo la'aan daahshatay dawladda federaalka waxa ay si xoog leh u bogaadinaysaa taageerada joogtada ah oo midowga Yurub ay u saxiixday dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed taageerada ay taageeraan 2.4 milyan euro ah oo dib u dhiska wadooyinkaasi waxay saxiixaysaa 100 milyan euro ah oo dhawaanba midowga Yurub ku taageeray kabka miisaaniyadda dawladda federaalka Soomaaliya ayuu yiri wasiir Jamal Maxamed Xasan intii lagu guda jiray munaasabadda Mr Nicholas Barlang Martinez ayaa yiri midowga Yurub iyo dawladda federaalka Soomaaliya waxay si wada jir ugu faraxsan yihiin taageeradani 2.4 milyan oo euro ah ee loogu taactirayo wadooyinkaasi muhiimka ah ee dalka ayaa sare u qaadayso kobaca dhaqaalaha dalka iyo gobolada ayna ka tarjumayso faa'iidooyinka bulshada ay ugu jirto dalka Soomaaliya Mr Martinez oo hadalka si uu taayay xaqiiqada hagaajinta iyo badbaadinta wadooyinkaasi waxay saameyn wanaagsan ku yeelanaysaa shaqo abuurka gawaarida goobaha caafimaad iyo adeegyada waxbarashada iyo bulshada lafdhabarka ay u tahay la dagaalanka saboolnimada dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday siyaasadda iyo wajahaysa talaabooyinka ay daba joogga ah ay Kenya qaadayso oo ka dhanka ah Soomaaliya balse wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ka hadlay magaalada Baardheer ayaa sheegay in siyaasadda dawladda Soomaaliya ay tahay oo kaliya inay Kenya uga jawaabaan aamusnaan waxa uu yiri wasiirka hadda siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya iskuma dhundholeysho walaalaheena xaggay ka guuraan ay wax bud ku dhuftaan xagga ay dabcan dhagax ku turaan annagana aamusnaanta ayaa door bidnay taasi ayaan wadeynaa ayuu yiri Mr Goodax wixii ka xanaajiyo haddii ay xanaaqsan yihiin ilaa ay degaan waan sugaynaa waana inaad walaalkaas sugtaa intuu ka soo miirsanayo annagana siyaasaddeena noocaas ayaan ku dhaqmeynaa ayuu hadalkiisa ku daray wasiir Goodax Barre Goodax Barre ayaa sheegay Soomaaliya inay leeyihiin Soomaali ayna ka shaqeynayaan Soomaali wana fikirayaan dad Soomaali ah
wixii intaa ka baxsanne waa in cagaheena ku doonana dhibaato waad la socotaan siyaasadda marba meel ayay aadaysaa ayuu yiri wasiir Goodax Barre. Kenya ayaa bilihii ugu dambeeyay qaadayso tallaabooyin culus oo ka dhan ah Soomaaliya balse jawaabta dowladda Soomaaliya ayaa aad u koobneed. Soomaaliya ayaa war ka soo saartay shirkii madaxda goboleedyada mucaaradka Nairobi. Mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay shirkii maamul goboleedyada maalmihii ugu dambeeyay la hadalhayay kaasoo la filayay inay ku yeeshaan magaalada Nairobi dalka Kenya. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Abdullaahi Goodax Barre ayaa arrintaasi ka hadlay isagoo haatan ku sugan magaalada Baardheere uu safar shaqo ku tagay. Wasiirka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dhibayso shirkaani ka socdo Nairobi waxaana uu si gaar ah ugu sheegay inay haatan ku shirayaan dal uu xiisad siyaasadeed Soomaaliya kala dhaxayo. Dowladda ahaanba wayna dhibaysaa ma ahan in maamul goboleedyada ay ku shirayaan ninka budka inoo haysto gurigiisa ayuu yiri wasiirka waxbarashada Soomaaliya. Wasiirka waxa uu sidoo kale sheegay in madaxda maamul goboleedyada ay leeyihiin magaalooyin ka wanaagsan Nairobi ee shirkoodii ku qabsan karaan balse ujeedka ka dambayso in ay ku shiraan Kenya. Wasiirka oo hadalkiisa wata ayaa waxa uu yiri wayna dhibaysaa markaan aragno maamul goboleedyada oo ninka budda ama usha noo hayso oo gurigoodii ku shirayo ma aysan weynin meel ay ku shiraan laakiin waxa ay u qaadqaadayna ma ahan maalin ayay aqli yeelin doonaan oo ay gurigoodii ku shiri doonaan. Boqolaal meelood oo ka wanaagsan ayay qabaan waxayna meeshaasi ugu shiraan waxa isleeyahay waa uu qaab daro ayaan isleeyahay anigu ayuu yiri wadankan waxa iska leh Soomaali ayagana u adeegana ayagana u shaqeeyna ayagana ayaan ka shaqeysan doonaa ayuu yiri wasiir Goodax. Shirka maamul goboleedyada ku yeelanayaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa gib ahaanba baaqday waxaana la sheegayaa inay soo kordheen culeysyo kale. Sacuudiya oo u jihaysatay Israa'iil kadib markii ay ku fashilmantay Mareykanka. Sacuudiya Carabiya ayaa qorsheynayso inay ka iibsato habka dabcan difaaca kantalaha Israa'iil loo yaqaano Iron Dome si ay haatanba uga hortagaan kantalaha ay soo ridaan Xuutiyiinta dalka Yemen. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay habka difaaca kantalaha Mareykanka oo magaciisa loo yaqaano Patriot System oo balaayin dollar ugu baxday Sacuudiya ay ku fashilmeen inuu qabto inta badan kantalaha ay soo ridaan Xuutiyiinta. Kantalaha hambaaro ama qabta loo yaqaano Patriot System oo la dhigo wax ka yar 20 kilomitir xuduudda dabcan u jirta Yemen ayaa noqday lacag qasaartay oo xitaa aanan awoodi weynin inay qabtaan kantalaha ay aad horumarsadeen ay farsameeyeen Xuutiyiinta dalkaasi Yemen. Xuutiyiinta ayaa dabcan ku radiyo Sacuudiga in ka badan 200 oo kantala ah waxaana rumaysan yahay inay ku dhinteen shacab gaarayo ilaa boqolaal. Sacuudiga ayaa dabcan waxay qariyaan xaqiiqada kantalahaasi Xuutiyiinta ah ee dadka ugu dhinto sidoo kalena ma doonayaan inay haatan mashaaca ay ka qaadaan ama dhaliil u jeediyaan kantalaha Mareykanka iyagoo haatan ka cabsanaya dowladda Mareykanka hase yeeshee waxay si hoose u qirsan yihiin in laga qaato wax tayo leh aan la siinin. Iron Dome oo Israa'iil u adeegsato inay haatan kaga hortagto kantalaha kooxda Hamas ayaa la rumaysan yahay inay 90% ay qabtaan kantalaha ay ku soo ridayaan Israa'iil ay ka wanaagsan yihiin kuwa Mareykanka. Fahad Al-Qahtani oo ah Sacuudiyaan layla siyaasadaha dowladda ayaa yiri Patriot waa guusha Trump 500 oo balaayin dollar oo u baahnayeen safarka Sacuudiga ah ayaa ku baxday kantala feeg ah waana khasaaradii ugu weyneed. Sacuudiga ayaa la sheegaa inay haatan Israa'iil ka codsatay in Iron Dome markii ugu horeysay ay ka iibiso ama tijaab ahaanba u siiso si ay Xuutiyiinta kantalaha ay ku soo ridayaan ay uga hortagaan kabadeedna ay haddii ay guuleysato ay ka iibsan doonaan. dalka Sacuudiga ayaa waxaa dalka ugu hubka iibsashada badan caalamka 4 sano ee la soo dhaafay hase yeeshee militarigoodii waa midda kuwa ugu taagta daran dunida. waxaa inta nooga idlaaday wararkii waraha Soomaaliya iyo caalamka ee kala socoteen Qaranjoog News warwarka lamada inta ku wada kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.